haddaad rabto inaad ogaato qiimaha ay leedahay hal ilbiriqsi weydii qof shil ka badbaaday haddaad rabto inaad ogaato qiimaha ay leedahay hal daqiiqo weydii qof ka tegay tareenka baska ama diyaarad haddaad rabto inaad ogaato qiimaha ay leedahay hal saac weydii dadka isjecel oo sugaya inay kulmaan haddaad rabto inaad ogaato qiimaha ay leedahay hal maalin weydii shaqaale mushaar maalinla ah qaata oo mas-uul ka ah qoyskiisa inuu quudiyo haddaad rabto inaad ogaato qiimaha ay leedahay hal bil weydii waalid u dhashay cunug 9 bilood aan dhammaysan haddaad rabto inaad ogaato qiimaha ay leedahay hal sano weydii arday ku dhacay imtixaankiisii ugu dambeeyey marka daqiiqad walba oo waqtigaaga ka mid ah waa qaali ee qiimee ninkii iska dayaca qayb ka mid ah waqtigiisa ma uusan fahmin qiimaha nolosha ay leedahay assalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaalka maanta halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa xikmado qoto dheer oo ku saabsan waqtiga iyo qiimihiisa maareynta waqtiga waa maareynta nolosha waqtigaaga oo aad maareysaa waa adoo noloshaada maareeyay waqtiga waa qaali iska hubi inaad la qaadato dadka ku habboon waxaa jira hal shay oo ka qaalisan waqtigeena waana qofka aan la qaadano waqtiga qofkii waqtigiisa ku siiya wuxuu ku siiyey noloshiisa qofkii noloshiisa ku siiyana wax kaloo ka sii badan oo ku siin lahaa ayaanba jirin qaabka aad waqtigaaga u isticmaasho ayaa qeexaya shakhsiyadaada haddaad maamuli weyso maalintaada ayaa ku maamulaysa noqo dhegayste wanaagsan waxay kuu badbaadinaysaa waqti waxayna kaa caawinaysaa xulashada saaxiibada iyo lamaanayaasha ganacsiga wax walba oo aad rabto inaad ku fiicnaato waxay u baahan tahay waqti dulqaad iyo ku celcelin badan waqtigu waa bilaash laakiin waa qaali ma lahaan kartid laakiin waad isticmaali kartaa ma haysan kartid hadduu marku dhaafana weligaa dib uma soo ceshan kartid shalay waa la soo dhaafay beri waa mustaqbal laakiin maanta waa hadiyad hadda ayaa ah waqtiga waxqabadka haddii aan ilaashano daqiiqadaha sanadaha ayakaa si iskooda ah isku daryeeli doona waqtigaaga wuu yar yahay markaa ha ku lumin inaad ku noolaato nolosha qof kale waqtiga waa lacagta noloshaada waa lacagta kaliya ee aad haysato adiga ayaana go'aamin kara sida loo isticmaali doono muhiimadda ayaa ah inay noloshaada dheelitiran tahay u qoondee waqtigaaga qayb ka mid ah fulinta riyada iyo hammigaaga farqiga u dhaxeeya kuwa meel sare gaaray iyo kuwa aan gaarin waa siday uga faa'iideysteen waqtiga warka xun ayaa ah in waqtiga uu duulo yacni aad ayuu u dheereeyaa laakiin warka fiican ayaa ah inaad tahay duuliyaha diyaaraddaas dheeraysa daqiiqad walba oo aad xanaaqsan tahay waxaad lumisay 60 ilbiriqsi oo farxad ah bedel 24 saac noloshaada ayaa isbedelaysa waqtigu waa la taliyaha ugu caqliga badan dhibaatadu waxay tahay waxaad u malaynaysaa inaad waqti badan haysato waqtiga waa waxa aan aadka ugu baahannahay laakiin waa waxa aan sida ugu xun u isticmaalno